laakiin maayer waxaan ku xasuusinayaa deegaanka daami ama xaafadda daami cid badan oo ka mid ah waxay ku arkaan cid gaar ah inaad jeebka ugu jirto ana aafo waa aafada ku dhex jirta tolka dadku waxay Soomaalidu waxay tiraahdaa wixii umusha u dana ayaa ilmahana u dana facebookiisana wuxuu ku soo qoray aqalkiisii baana aflagaada ayaa ka dhacday hadduu xildhibaanku shaarkii xildhibaannimo aan u xidhnay uu isagu si gaar ah u isticmaalayana dee caqli baad u tahay adigii beerta xorriyaddaba u caqli celinaya wax akademi leeyahay ku talaabay raatay ma jirto waxaan u sheegayaa gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif waa qayb ka mid ah hadalla ka soo yeedhay xubno iskugu jiray madax dhaqameed waxgarad iyo dhalinyaro oo ka soo jeeday xaafadda daami ee magaalada Hargeysa kuwaas oo kulan ay iskugu yimaadeen maanta walaac kaga muujiyay qaab ay sheegeen in xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland uu waajaho xaaladda dad iyo dunyo ee deegaankaasi xubnahan ayaa si gaar ah uga biyadiiday maaliyad miisaaniyadeed oo dhawaan u ansixiyeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland qaabka loo qorsheeyay iyagoo eedahaasina dusha u saaray xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun waxaana xubnahani cod dheer ay ku sheegeen inaan aayahooda ka talin karin dhowr qof oo xisbiyada mucaaradka ka tirsan sida ay hadalladooda u dhigaan maanta xagga hambalyo ballaaran anigoo magaca beesha ku hadlaya waxaan uga jeedinayaa shananka ciidamada bileyska ee la dalacsiiyey in shana gale ayaan xaggan mahad ballaaran ilaahay baa iskale ama mahadnaqe ayaan xaggan uga jeedinay inuu ahaado kii dalkiisa iyo dalkiisa ilaahay ku asturo waana ku hambalyeena gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif waxa weeye miisaaniyadda cidii ay khusayso iyo cidii beesha oo dhan ayuun baad wada dhiibi kartaa cid shakhsiyo ma dhiibi kartid intaa waxaan ku darayaa nin baa jiray boqod baan ahay aniga xoogay reerkaaga aniga u caaqila kaa kale aniga u caaqila waana waa aafada ku dhex jirta tolka aafada Allah inaga qabto dadku waxay Soomaalidu waxay tiraahdaa wixii ilmaha u dana wixii umusha u dana ayaa ilmahana u dana waxa weeyaan dee dhaqaalaha iyo budgetka la bixiyo ay qaybiyaan baarlamaanadu waxa weeyaan gudoomiye taxdad wax ku soo darayso waa kuwan wixii intii beesha matalaysay ama gudoomiyihii dhalinyarada ama gudoomiye suldaanadii caaqiladii waxa weeyaan way wada joogaan gudoomiye xaafadaha waxa weeyaan dee way wada taagan yihiin waxa weeyaan dee in yaroo gaar ah gudoomiye dee meel yar iska ordayso oo tartan ku jirto oo dee shimbiraha baalashoodii oo dhan soo gurtay gudoomiye dee taas ma matasha beesha waa in dee dan gaar ah u socotaa marka kuwa danta gaar ah u socoto waxa weeyaan dee ha u eegin beesha markaad wax doonaysaa inaad siisaan dee waxa weeyaan yaa xukuma beesha iyo ka tala qaadataa weeye gudoomiyaheedii weeye odayaashoodii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaan u mahadnaqaynaa waan soo dhaweynaa haddaan nahay bulshada xaafadda daami asxaabta uu furay ururada iyo go'aanka geesinimada uu ka qaatay uu loo tartamaya haddaan nahay bulshada xaafadda daami waan soo dhaweynaynaa fikirka xaafadda daami laga aaminsan yahay inay xaafaddu xusbi mucaarid ay yihiin xaafaddu xusbi mucaarida ma cid gaarana uma xidhnin miisaaniyadda qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee la ansixiyay golaha baarlamaanku ansixiyay dee horta waan soo dhaweynaynaa horena ugumaanu jirin beerolka miisaaniyadda qaranka laakiin xildhibaanka noo matala Barkhad Jaamac Batuun wuxuu sheegay in bulshada xaafadda daami wax loogu qabanayo facebookiisana wuxuu ku soo qoray in aadan academy oo xaafadda aan ka muuqan oo aan ka shaqaynin inay kirooyinka laga bixinay taasna mid ummadda qabata maaha mid xildhibaankii laga filayay wax qabad tan waxaan leeyahay qaranka Soomaaliland uu arkaa ninkii bulshada Soomaaliland soo jeediyay Dr. Kaboosana uu arkaa duldaba dhaliisha ka muuqata Barkhad Jaamac Batuun anigu waxaan ahay Jaamac Khadar Cabdullaahi Batuun baan ahay ninka beesh la ilmaadeer baan ahay ninka khaladaad ka soo baxay dee waad arkaysiin xagga waxaan mahad ballaaran uga jeedinayaa madaxweynaha iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland shacbiga ku nool waxaan ka hadlayaa qadiyad ah anoon hadalka badinin Barkhad Jaamac Batuun aqalkiisii baan ahay aflagaada ayaa ka dhacday aad iyo aad ayaan uga xumaaday madaxweynaha iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku nool
xaal ayaan ka bixiyey kelmadda uu ku hadlay xaal ayaan inaga siiyey xaal ayaan ka bixiyey aad iyo aadna waan uga xumaanay maadaama aqalkiisa aanay madaxweynahana waxaan ka codsanayaa inuu iga aqbalo raaligelintaa iyo dembiga uu galay in laga cafiyo xaalna aan ka bixiyey kelmadda uu ka yidhi barkhad maalintii beerta xorriyadda ayuu ka yidhi kelmaddaa ma ogti waxaan ka hadlayaa arrinkan akademiyadda aadan akademi waxa weeye ma quseeyo bulshada xaafadda daami waxa weeye dee waxaa quseeyaa kolka arrin uu soo baxay ninku mas-uuliyadu dee ummad wax loogu dhiibo dee ummaddu inay wada tashi ka yeelato iyo dee wax laysku ogyahay oo dan u ah beesha inay dee wada tashigaa yeelato ayay ku habboon tahay laakiin marka nin dee dan gaara wataay uu intuu magac huwado deedna waxa weeye suu doono uu ka yeelu isagu ku ganacsado waxa weeye mid aanu raalli ka nahay ogol lahayna ma aha runtii waxaan halkan uga hambalinay jananka ciidanka bilayska janno gale ilaahay xilkaa ku asturo anoo raacinay taa miisaaniyadda aadan akademi xaafadda dee kuma taalo daami annagaa galna wax akademi la yidhaahno ku taala habeeraatee ma jirto run ahaantii waxa weeyaan dee waxaba annagana soo gaadhayay macal haaruun inay ku taalo maxayadan goobtu macal haaruunna daami maaha haddaan nahay dhalinyarta xaafadda daami arrinkan waxaan leenahay dowladdu dib aa ugu noqoto aga waxaan ka caddaynayaa haddaan nahay dhalinyarta xaafadda daami inay xaafadda akaademiyad keliya ka dhisan tahay akaademiyadaasoo la yidhahdo qoba akademi akaademiyadda uu xildhibaanku sheegay uuna ka sheegay golaha baarlamanka inayna xaafaddeeda ku yaalin intaan joogno xaafadda aanan maqal inay akaademiyad kale xaafadda ka dhisan tahay waxaan u sheegayaa gudoomiyaha baarlamanka cabdirasaaq khaliif inay akaademiyadaasina xaafaddeeda quseyn waanu mahadcelinayaa markii koowaad oo xaafaddeedu miisaan ka heshay baarlamanka mahadcelintaa kadib waxaan u sheegayaa gudoomiyaha inuu dib ugu noqdo inayna xaafadda akaademiyad keliya ka dhisan tahay akaademiyadaasoo la yidhahdo qoba akademi akaademiyadaasuna inay jirin baan xalan ka caddaynayaa in haddaan nahay xaafadda gudoomiyaha dhallinyarta akaademiyadan waxa weeyaan quba waxayna ku taallaa xaafadda daami annaga haddii daamin laga aaminsan yahay waa mucaarad annagu muxaafid baanu nahay imaka hadalkii ugu horreeyaan inagu yidhi wuxuu ahaa hadhow annaga buur baana laga dabarray waxaa loo doonaa shirkaasu waa shirna nacamna lagu dacaydeynayay maanta ka hor miidiyaalkaa maan soo fadhiisan miidiyaalkaa maanta waxay soo fadhiisiiyeen waa ficil xaafadda aanu ka aragnay horena barka jaamac batuun inaan magacaabo maan doonin waanu raacsanayn waanu ictiraafnay waanu soo saarnay waanu ololaynay maanta xaafadayada miisaaniyaddii loo soo dhiibay xaafad macali haaruun la yidhahda sidee loogu magacaabaa geestiisa suldaan maxamed muuse abu sufyaan oo gebagabadii goobta ka hadlay ayaa adkeeyey hadallada xubnahaasi waxaanuu fariin adag dhankiisa u diray xildhibaan barkhad golaha baarlamaanka iyo sidoo kale maayirka caasimadda hargeysa cabdikariin axmed moge runtii aad bay u mahadsan yihiin cuqaasha iyo nabadoonnada iyo aqoon-yahanka madashan fadhiya arrimaha ay soo sheegeen oo runtii arrimo jiro ah wuxuunaan ku xoojin lahaa waa qodobka koowaadee ummad marka wax loo qabanayo ama wax loo tarayo waxaa ka horeeya waxadhaa arrinka inay dadku wada tashiya arrin yeeshaan arrintu markay miisaaniyad qaran timaado ama heer qaran ay marayso waxaa fiican in ciddaa wax loo qabanayo in runtii waxa weeyaan taladooda la uruuriyo si midaysan oo hagaagsan oo hufan wax lagu qabto ayaa runtii horta soo dhaweynaynaa waxaan kaloo tilmaamayaa ummaddan aynu ka soo jeedno ee deegaanka daami ama xaafadda daami ku magacaaban ummad masiirkeeda NGO-yo iyo ururo ay ka talin karaan ma aha waa ummad ballaadhan weeye waa ummad loo baahan yahay runtii taladeeda in aad iyo aad loo rogrogo waxaan leenahay marka arrimaha odayaashu ay sheegeen ee ku saabsan miisaaniyadda loo ansixiyey ee markii ugu horreysay taariikhda la geliyey way fiican tahay markaad dhinac eegto waa tallaabo hore loo qaaday
runtii markaad dhinac eegtana dee waaba yaro saluugaysaayo xildhibaanku wuxuu sheegay in 300 milyan ee miisaaniyadda guddida dhaqaaluhu u geliyeen waa siduu isagu hadalka u dhigay ee qolooyinka lagu magacaabo beelaha gabooye waxa uu sheegay in miisaaniyadda markii ugu horreysay lagu daray runtii annaga oo dhinac ka saluugsan oo ummad ilaahay abuurto 6 gobolba ku nool ay marka horeba yara daciif tahay in 300 milyan oo 730 dollar u dhiganta sanadkoo dhan xoogaa halkaa dacfi ka muuqdo oo waxyaabo ka koobanba ay ka miisaaniyad badan yihiin marka yelkadeedee haddana in la yidhaahdo ummadda dhan masiirkoodii halkii la isugu iman lahaa wax la iska weydiin lahaa talada u baahin lahaa waayo xildhibaanku markuu codkana weydiisanaya si midaysan buu noo weydiistay runtii si midaysanna waanu siinay reerku umuu kala hadhin waxay ahayd sidii codka u siiyeen ee ay ugu ololeeyeen inuu si midaysan isaguna ula dhaqmo may ahayn inuu shakhsiyaad isaga la aragti ah oo la xisbi ah oo la fikir ah inuu taladii ku ururiyo may ahayn bale inuu taladii dhaafiyo oo uu taladii reerka uu ka dhigo talo NGO-yo iyo urur ay ka taliyaan runtii waa arrin nasiib darra weeyaan baarlamaankana waxaa leeyahay guddida dhaqaaluhu war waxa la idin keenayo ee ummadda ka socda daraaseeya aqoon darro fara badan baa idinka haysoo idinka muuqataa bulshadana ka soo jeedne wixii daraaseeyo waxaa tiraan war waxaynu ansixinayno arrintani arrin u cuntamaysa ma tahay taladeedu say tahay waxa weeyaan mar haddii xildhibaankiina matalayay ee meesha ku jiray uu noqday xildhibaan cid u janjeera aragti siyaasadeed oo gaarana uu ku shaqaynayo xisbi gaarana aragtidiisa wato waxay ku qurux badan tahay in si midaysan si taa ka yar ballaaran bal inaad talada kula yeelataan oo aad u ballaadhisaan talada aad dadkan ku soo waajahaysaan waxaa kaloo runtii baraarujinaya arrinta kaloo ah xaafadan aan degannahay in badan waxaa lagu calaamadeeyay inay tahay xaafad mucaarada runtii arrintaasina sax maaha waxay la mid tahay xaafadaha kale iyo bulshada kale muxaafid iyo mucaaradba way leeyihin laakiin in fikirkaa laga qaato runtii ma soo dhoweynayno waa in la ogaadaa dadkani inay inta halkaa fadhidaaba waa in ku abtirsata markaa muxaafadka oo waxa weeyaan dowladda taageersan weeyaan in kaloo mucaaridina way jirtaa laakiin taladii xaafadda in iyagu lagu koobo oo baarlamaankii in mucaarad uun dhegaysto oo runtii waxa weeyaan ay noqoto uun xaafaddii sawirka noocaasiina ka baxana iyadana runtii ma soo dhoweynayno waxaan leenahay oo arrinta kale aan ku daray ay tahay oo halkan ugu hambalyeynaya generaal maxamed janagale oo sarayagaas madaxweyne dalaacsi isaga iyo saraakiisha kale la dalaacsiiba waxaan leenahay hambalyo waxaan intaa raacinayaa oo aan ugu bogaadinayaa dadaalka fiican ee xaafaddii ka qabtay waayo xaafaddii iminka daraagiska hoos buu dhacay iyo runtii waxa weeye arrimo fara badan oo aadna loogu xaman jiray aad iyo aad bay hoos ugu dhaceen waxa weeyaan dadaalka uu muujiyey baanay runtii kow ka ah isagiyo taliya qeybeedka taliyaha bariga iyo markaa waxa weeyaan taliya baashaba runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan kelmadeyda ku soo ururinaya in badan baad aragteen anigoo hadlaya keligee fikirka aan ku hadlaya wuxuu ahaa fikir ay bulshadu ila qabto in badan oo ka midi waana arkayseen iyadoo in badan la caayayo la dhaliilayo wax kalena ma ah war ka daayo wey war sidanina ma anfacayso war xaydaabka wada tashiga iyo wada lahaashiyaha aynu ku soo noqono war aynu u laabanno waxa weeyaan waxaynu horumar ku gaadhayno aan ka dayno waxaanan xisbi gaara markaa ku wadno waxaynan mucaaradad ka dayno taas wata waxaan kaloo intaa ku darayaa waan halkan baaq uga soo jeedinaya isagana kelmad maayar cabdikariin axmed mooge maayar cabdikariin
runtii waa kugula garab taaganay dadaalka la wado waa wanaag fara badan uu ka muuqdaa laakiin maayar waxaan ku xasuusinayaa deegaanka daami ama xaafadda daami in badan oo ka mid ah waxay ku arkaan cid gaar ah inaad jeebka ugu jirto marka xaafadda arinteeda la eego in cid gaar ah unaad soo raacayso cid gaar ah unaad la socoto ma garan karno maayar waxa tahay maayarkii caasimadda 1 milyan iyo badh baad maayar u tahay ka soo jeed xisbiga wadani صح qof walba xisbi buu ka soo madaxweynuhuba kulmiyu ka soo jeedaa laakiin bulshada caadiga ee haddii salaadiinta tahay iyo haddii cuqaasha tahay waxgaradka dhalinyarada tahay waxay u muuqataa in badan markaan suuraysanay waxa noo yar muuqataa in maayarka cid gaara aad moodo in uu janjeero taasina ma anfacayso maayar dadka waa inaad isku wadaa deegaanka markaad wax ka qabanaysid in yaroo gaaro oo de ku timaada maaha inaad wax la qaadatid hadduu xildhibaanku shaarkii xildhibaannimo aan u xidhnay uu isagu si gaar ah u isticmaalayana dee caqli baad u tahay adigii beerta xorriyaddaba u caqli celinay adigii raaligelin ka bixinaya hadalkiisa madaxweynaha uu markaa ku duray meesha aad lahayd munaasabkuma war arinta deegaanka iyaga iyo xaafadda daamina haddii wax qalloocan lagula yimaado da adar u caqal celiyo joojidha ha iska soo raacin oo waxa weeyaan ha iska socone waxa weeyaan maayar ninka arintaas dib u eeg waxa weeye xaafadda waan jecelahay horumarkeeda waan jecelahay hore loo socdo laakiin waxa fiican dadka in la isku wado